السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أصحابتي وأنا حاس فرطاني برشاد علمي فوتوشوب كا أتفهم كل شيء CSS سلامات with the best tools بين صور لي قلنا حتى كور 10 كيلو مركز أنت كل ما بدنا مستر 10 كيلو ولا حد باك جراوند كلفت كيس أدقو بدي كرس ولا حد مركز سيمبلي زيرو فوت فاهم كرس سامبا إما واحد دنيا ولا في فيسك وتال كنت الله مركز سيمبلي إن صور كان ضمبي باك جراوند كقانون وميت كل جيل midda kale asxaabta waxa la yiraahdaa refine h baan idin barayaa oo ah tool aad iyo aad u muhiim ah toolka refine h iyo toolka selection tools labadii tool ee aadka ugu sahlan oo labada midna halkaas ku jira asxaabtay midna refine h baa la yiraahdaa imika active maaha laakiin goorma active noqonaya iyo sidoo active noqonaya labada toolalkan waxa kamid ah toolation loo isticmaalo tusaale ahaan imika waxaan haynaa halkan labo sawir kani waa kii markii hore isku practice garanay uma baahna hadda وانا selection tools يعني ama ku ugu muhiimsan noo iska dheh halkan waxaan ku haynaa laba sawirkan waa sawir magaala sawirkan waa sawirkii farxiya marka waxaan sameynaynaa halka yare koonaha waad ku dhufanaysaa hadii jeer ku jiidis inta saa ugu qabato cursor-ka saasaan ugu qabanaya waan jiidaya si aan windows cusub u samaysto calaashaan windows maarat yar u samaysto waxa imika windows kiira waxa laakiin key background-ka kan waa halkan yaala deetana marka waxaan sameynayaa isma dhibayaba inta saa u qabta asxaabta sawirkan aan doorto maxaa la halka aan doorto ka ayaan saa inta u jiido ayaan saa u dulgeenayaaba sorry jiid saa asxaabta u dulgee marka halkan ay ku imanaysaa marka aad jeer waa inuu ku select garasnaada halkan marka kan iska soo laabkani waxa kii aynu marka window ka dhignayno kala baxnay uu ahaa waa symbol halkan iska soo dhig ama waxba ha save gareyn ba iska qaad halkan imika maxay noo yaala asxaabta waxaan doonaynaa laakiin in size wax ka bedelno size-ka oo anigii ku yiri tool muhiim ah jira oo halka ku yaala had iyo jeer oo muhiim ah oo aad iyo aad maaragtay runta u baahan tahay ama waxa taabanaysa waxa la yiraahdo marka ka baxaysa dhig wax weey waa selection-ka adu toolka aad uga warhaya hadda iminka tusaalahan iminka waxa doonayna inaan dheereeyo ama weyneeyo si aan ugu hagaajiyo hadda waan ku hagaajin karaa laakiin size-ka laftigiisa inaan bedelo ayaan doonayaa oo farxiyo halkaas ku sawirta ka dhigo background kan dambana ka saar marka transform-ka iska tag waxa ku soo baxaya hareeraha badhamada yaryar waxay ku gelinayaan sawirka inaad saa doonto u gasho marka ama weynaysto ama dhinac u qalibto ama jiifso ama joojiso taasi aday marka ku taala hadda anagu waxa sameeynaa kaliya inaan yar weynino oo ama aan saa maartay ka yar dhigno kaba soo qaado kale anyway laakiin maxay dhibaya meeshii fashilaya the background-ka simply oo anidii ku yiri selection tools ka caawin karaya si aan hadda 10 hore soo sheegnay selection tools sababta qaabkaaga caawin karaya waxa weeyaan layer-ka aad doonayso inaad saarto dul tag ka bacda waxa tagtaa selection tools iska dooro hadda kii hore apply day marka sababta kii hore ma haysan marka waxaan dooranaynaa selection tools kiini oo ku soconay 10kii horena inuu ahaa dul tag selection tools ku dhufo ama dhimaliyo oo kaliya taabo marka size-ka marka qaar hadda doonayso in si degdeg u weynayso halka ka bedel size-ka marka aanu laakiin ma doonayna in intan ka weynaysto sababtoo intan ayaa iga dhaqso badan saasaan dadka marka ugu qabanaysa hadda ku sheegay morse and left hand right ka qabanaysa ma si deynaysid saasad u wadaysaa sababtoo ah isagu si dhaqsaabo marka uu kugu doorayaa dhibaato caqabado fara badan kala ma kulmaysid waa the best tool saar hore ku sheegay in yar way jirtaa ka raacaysa laakiin inta muhiimad oo dan leenahay waxa inta yar loo xaliyo insha Allah halkan waxa imika iga raacday waan ku yiri sida hadda ka hor idin sheegay mainstars ayaad markaa isticmaalaysaa oo ah selection tools ka wax weyn tool kamid ah ka bacda halka ayaan ka soo digay markaas asxaabta uu yimi haddaan doono asxaabta haddaan aad uga soo dhaadhaco ku yar dari karaa laakiin si yar oo tartiib aan ku dari karaa halkan oo kale iyada waan ka soo jarayaa maaragta laakiin waxa taabanaysa hadii jeer altada la qabo mararka qaar waxa suurtagal inuu ka waxyaabaha jirta asxaabta imika aanan yar oo aanan arkino laakiin dhibaato ah oo dhinacyada timaha ka baxay waxa soo dhan qaab loo xalinaya hadaba jirta horta intaynaan xalin marka ugu horeysa waxaan sameeynaya waxa taabanaysa refine toolkii oo ku yiri waa tool ku fududeynaya inaad sawirka si daqiiq ah sawirada timaha oo kale dhibaatada background-ka laga saaray imika su'aalaha meelaha badan baa iga raacay xaggan iga raacay xaggan waxba iga raacay xaggan toolkii hatta intii aan qaadan lahaa laftigeeda ayaan si caadi u qaadan refine toolka muxuu ku fududeynayaa taasoo ku fududeynaya inuu waxaas oo dhan ka rifo ama ka habeeyo ka bacdi auto enhancement kaas ee ka doornaata refine tools baan oranaya box noocana ii soo baxay boxkan waa box muhiim ah
waxyaabo badan ka caawin doona. Marka nooca aad doonaysa halkaas ka dooranaysa. Halkan waxa weeyaan waa view-ga show radius, show original, labadaba waad arki karaysaa. waxa kale oo u baahan tahay inaad start radius tiraahdo kabacdina aad toolka dooratay edge-ka. marka hadii jeer halkaas iska tagayna halkan ilaa iyo dhowr iyo 10 iska keen edge-ka xaggan show original dad tiraahdo show radius ku tusaya, show original dad tiraahdo ku tusaya. okay anyway wali ilaa iminka ma aragno, laakiin halkan waxa sameeynaya qaabka aniga selection-ka igu muhiiman ka dhex arkayo wixii dhibaato ku jira. waxaan sameyn karayaa halkaasaan hoos tagaya, halka ay inta ku dhufto, halka ay waxa ku jirta waran yar, waranka ay ku dhufto selection tools fara badan baa ku soo dhigmay. anigu qaabkaas favorite-kayga hadda doonaysa casaan baad ku eegi karaysaa si aan dhacyada ku jira wadiga arkay meelaha maarta aan ka baxbaxay khaladka ku jira. sidoo kale waxaan sameyn karaa on black-gaas aniga favorite-kayga ah. idinka dad doontaan ka dhigta xaggan yar baan yar celin karaa xaggan, yani contrast ku yar dari karaa, shift-ga xoogay yar ku dar. qofba si professional u tahay weeye. marka intaas sameeyo selection-kaasaan ku dhufanayaa asxaabta. ma arkaysaan selection-ka ka aan doonayna ka saaro. waxaan ku horta documentation isna ku dhufo. agan documentation oo dooranaya isna ku yar badan ilaa 7 ka yar dhigmay iska yaree. oo marka waxa weeyaan wax la decontaminate, يعني contaminate waxa la yiraahdo decontaminate waxa weeye decontaminate colors waa tinta yare wax ka raacaan iyo inta yare maartay waxaas oo kan ayuu isna ka saaraa. new layer na iska deynaysa waa new layer mask halkaas soo dhigaya new layer mask cusub. marka waxa leedahay kabacdi imika halka yar baan doortay maarta kabacdi waxa leeyahay intaanan horta ka bixin imika sidana leeyahay. waxa halkan imika khasab waxa halka ka arkay asxaabta cadaanka maarta wixii imika dhamaa ee timaha rifrifka iyo intii iga baxday, yani inantu timo rifrifka ma laha. ana markii aan soo koob gareynay waxa uu sameeyo waxyaabo badan oo rifrifka waxaas waxay keenaysaa in dhamaan uu ka saaro dhibtii meesha ka jirtay maarata. halkaas oo dhan baan ka saareynaa, ka masaxaynaa xaggana, ka masaxaynaa xagaa, ka masaxaynaa halkaa, ka masaxaynaa maarata wax kasta saas marka kaaga saaraya. okay waxa kale oo hadda doonto oo bedelan karaysaa layout-ka xagga saas oo kale ka dhigo. waxa tan laftigeeda hadii meelo yar wax ku jireen iska marso si aad maaragtay. okay offline wad oran karaysaa ma arkaysaa. okay caadi original halka maaragtay waxa ku jira saad. anyway tani waxay ku sax. okay iska dheh maxaa halka ku aragtaan marka sawirkii uu dhex galay baaristi wali laakiin ciladii wax yar baa jirta. inta yar maxaad uga saaraysaa baan ku yiri waa qaabka isticmaalaysa. markasta refine edge-ka isticmaal isaga kaliya ayaa ku suurtagelinaya inaad markasta selection tools-ka muhiimadu ah. laakiin maxaanu sameynay sawirkii background-ka oo ka dhex saarnay hadaynu doono si fariisin karaysaa. laakiin had iyo jeer iska ilaaliya inaad maaragtay insha Allah isticmaashaan size weyn ha isticmaalna. aniga khaladka waxa weeye size weyn brush-ka isticmaal. ساعتها حاد فرطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا لكم كبرناي selection tools-ka ka ugu marka quick selection tools-ka ka ugu muhiimsan. waxa kale oo baranaa asxaabta refine edge-ka waa isnaalka ku yaala iyo markuu active noqonayo marka selection tools-ka sameeysan ayuu ku marka asxaabta waxa jecelahay insha Allah 10 soo practice garan doontaan hadda waa active wakaas una sii wada doona 10 hadii Allah yiraahdo. kulay iska wax yar baa ka haray mar hadii basic la qabsato.